السلام عليكم مانتا waxaa idin la wadaagi rabay sheeko ka oosisay Umar radiyallahu anhu waxaan ka codsanayaa inaad dhageysto videogan ilaa ka dhamaado insha Allah. Umar radiyallahu anhu wuxuu dhahay Abu Bakar Madiina ayuu ku noolaa meesha ayuu ka talin jiray salaada ayuu dadka tudin jiray mar walbo. Umar wuxuu dhahay maalin walbo marka salaada fajr laga baxo Abu Bakar wuxuu aadi jiray meel aan gurigiisa ahayn meel dheer oo aad u fog. Umar wuu la yaabay arintaas wuxuu ku dhahay Abu Bakar muxuu meeshaas u aadaa saas ayuu isku dhahay saas ayuu ka fikir jiray mar walbo. Markaas kadib Umar radiyallahu anhu wuxuu ka fikiray maalin walbo meesha uu aadayo. Maalin ayuu isdhahay waa inaan dabagala oo ogaada meesha Abu Bakar Sadiq aadayo si aan ogaado wuxuu sameynayo. meel fog ayuu ka fiiriyay meesha uu aadayo kadib wuxuu arkay asoo galayo guri aan dhismadiisa wanaagsaneyn oo aad u duq ah. kadib Umar wuxuu ku dhuntay guriga gadaashiisa laakiin Abu Bakar waqti badan ayuu qaatay marka uu gurigaasi galay muddo ayuu ku jiray ilaa waqtiga salaada duhur ku dhaweed. kadib Abu Bakar guriga uu ka soo baxay wuxuu u laabtay Madiina meesha uu joogay waa meel ka fog Madiina. marka Madiina ayuu u laabtay Umar wuu sugay ilaa Abu Bakar wadada guriga ka fogaado. kadib Umar wuxuu garaacay guriga kadib wuxuu dhahay aan fiiriyo guriga qofka ku jiro waa sababta oo Abu Bakar mar walba guriga u galay waa inaa ogaada. kadib albaabka waxaa ka furay naag xoogaa duq ah naagta oo xoogaa weyn oo duq ah oo naagtaasoo haddana indhoolo ah. ilmo badan ayaa guriga joogay. kadib Umar wuxuu ku dhahay assalaamu calayki maxaa waay xaaladaada sidee waay xaaladaada ayuu ku dhahay naagta waxay ku dhahday aniga naag indhoolo ayaa ahay qof ilaalinayo oo xanaaneynayo ma joogo waxaana haystaa ilmo agoon oo waalidkooda geeriyooday. markaas kadib Umar radiyallahu anhu wuxuu ku dhahay yaa way qofka subax walba ku imaanayo. naagti waxay ugu jawaabtay ma aqaano qofku yahay qofkaasi magaciisna iima sheegin marna. Umar radiyallahu anhu kadib wuxuu ku dhahay muxuu ku sameeyaa qofkaas waxay ku dhahday jazaakallah khayr Alle ha barakeeyo Alle ha ka mariyo qofkaas subax walba wuu imaanaa si fiican u dhageyso wax walbo ayay sheegay. naagta waxay ku dhahday Abu Bakar markuu imaado guriga ayuu nadiifiyaa dharka ayuu ii dhaqaa galayda ayuu ii shiidaa rooti ayuu ii sameeyaa quraaco ayuu ii sameeyaa. marka uu Abu Bakar radiyallahu anhu intaas sameeyo markaas ayuu sii baxaa oo Madiina u laabtaa. subxaanallah ka fikir xaaladaas waa arin aad iyo aad u wanaagsan ayuu dhahay Umar radiyallahu anhu. runtii ninka ummadda madax u ahaa oo amiirul mu'miniin ahaa oo khaliifo ahaa ninkaas oo ugu weyn oo ugu wanaagsan asigoo saas ah oo aadayo meel fog oo si uu sii caabiyo naagta tabardaran oo ilmo agoon. Umar wuu la yaabay arintaas markaas ayuu dhahay naagta intaas ayuu ku sameeyaa maalin walbo. ayadan waxay dhahday maalin walba ayuu ii imaadaa intaas ayuu ii sameeyaa Alle ha barakeeyo ninkaas. kadib Umar wuu yaabay kadib wuxuu ku dhahay lacag miyaa siisaa waxay ugu jawaabtay marna waxana ma siin waxna aan siiyo malahan wuu ii imaanaas wax walbo intaas ayuu ii sameeyaa markaas ayuu iga tagaa. Umar wuxuu bilaabay inuu ooyo kadib ayuu ku dhahay Abu Bakaro waad guuleysatay sababtoo ah ajir iyo sawaab asi oo helayo ka waran maalin walbo. Abu Bakar wuxuu sameey jiray waxyaabo badan oo sir ah oo Alle kaliya og oo ajir badan laga helayo oo qofna aan la wadaagin. haddii aad akhristo sheekada Abu Bakar ayaa ogaan doontaa waxyaabo badan uu asi sameey jiray waa inaan asina wuxuu sameynay aan sameyno oo siryaal qaar oo micnaha Alle og yahay oo anaga caabinayno waa inaan sameynaa oo inaan ku sheegano qofka markaa caawino oo dadna aan u sheegin. cashirka aan sheekadan ka baranayno waxa waaye haddii aad sameynayso qayr oo dadka og isku day inaad sameyso qayr oo Alle kaliya og. sadaqo sir ah aad baxsanayso dad ha u sheegin qofna ha u sheegin. sadaqadaas oo kale waxaa si wanaagsan waa inaa caabisa oo dadka micnaha oo duqya oo micnaha oo waayeelka ah inaa caabis waay in haddii aad deris leedahay inaa caabis waay deriskaada micnaha waqtiga ula caabiso wax walbo u sameyso
marka waxaa awood oo samayso oo Alle kaliya og yahay. marka qofka tabar daran oo maalina caabiso waxa ku sheegan dadkan ha u sheegan sababtoo ah sadaqadaas macnaa ma ku ahan sadaqo waa ku sheegta ayuub qofkaas waxa laga yaabaa qofkaas aad ku sheeganayso in nafsi ahaan aad dhaawacayso qofkaas. marka isku day inaa marnaha ku sheegan qofka aad waxa siinayso. jazakallah khairan for listening sheekadan insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay dhegeysanayso. maca salaama.